الحمد لله بوليس كبا إلهي إيكان. Hello. Come on. Yes. Hello. إنا لله. Are you okay? No. Are you okay? No, okay. This around time. Women. Ambulance ma kugu wacaa? Look, my baby is moving. Problem, you know. You understand English very well, right? Soo marka takhtar ma u baahan tahay? No, Somali ay gula hadlin. I fought for Trump. Are you okay? What's your name? Nahla. Nahla. You need help? No, okay. Takhtar ma u baahan tahay? My abu. Maxaa kugu dhacay? Ama halkan ka soo baxay naag uur leh hagaga. Naag uur la ah. Oo maxaa kugu geeyay naagta uurka leh? Garan maayo walaalo maxaa naagta meel igala qaatay. Okay, adiga magaca? Nahla. Halkee degantay? Waxaan deganahay 703. 703. Okay. Then maxaa dhacayna? What happened? maxaa idinka dhaxeeya gabadha? walaalo macaan oo 2016 bishii afraad 2016 bishii afraad ayaan isku dhacnay gabadha. haye ilaa intaas waxay ii haysay caloosha wax iigu haysay. haye hadda uurka inta yeelatay bisas ii raadisaa. waa gartay laakiin waxaan rabaa halkee degantahay adiga? waxaa tiri 307 ayadana halkee degantahay? ayadana waxay degan tahay ka iga hooseeya. Okay, Nahla waxaan ku weydiiyey walaal adiga waxaa degantahay 307 ayadana waxay degantahay 207 okay, maxaa floorkan 307 ku keenay waqtigan? gabadh dariska u imiday oo halkan degan. gabadha magaceed? gabadha Caasha la yiraahdaa. marka waa gartay haddaad takhtar u baahan tahay ambalaasan kugu wacaa laakiin maadaama waxaan ay legal matter ay yihiin wax walba inay ogaadaan rabaa intaan gabadha kale u tegin. soo marka waxaa tiri gabadha kale gabar uur le waay gabadhaan la dhaho uur bay leedahay. okay, gabadha 207 ka degan. okay, marka Naciima. okay, meeqa saac ahayd markaa dagaalka u bilaabanay? adiga waxay ahayd 7 PM. yaa kaloo idinla joogay? cidna albaabka kale ka soo degay meesha bay igu jirtay banaabto. ma howliga isku dagaasheen mise gurigeeda dhexdeeda? kamerada xitaa wala baadhi karaa. okay, camera way leedahay 7 ay ahayd. soo baadhi karaa. okay, taariikhdana waxay ahayd August 26 7 PM soo maaha? okay, marka waxaan rabaa inaan ogaado ma wax idinka dhaxeeya jiro ma business idinka dhaxeeyo business ma jiro saaxiibtinimo xitaa ma jirto. aroosaan isku dagaalnay 2016kii. arooska aad oo 2016kii oo bisha afraad ahayd ma arooska ma relative ma ahaydeen dadka aroosay mise waa iska tagtay? maya aroos fa asxaab ahaa. okay, marka gabadha Naciima Joker la dhaho oo 207 ka degan arooska ma isku aragteen? arooska isku dhex dagaalnay. arooska isku dhex dagaasheen. marka wax marqaatiyaal oo meesha joogay ma xasuusan kartaa maadaama waqti hore ahayd? okay, Nahla waxyaalo badan aan kaa qoray marka booliskan oo warka badan wari dhigeyso soo fiiri soo fiiri aniga qof waxa uu egtahay oo barban raadis ah. hay soo aniga waxaan wax walba inaa arooska 2016 oo bisha afraad ahayd aad tagtay kaliya ma tagtay? soo adiga ma single aatay? single baan ahaa. ma inta gabadha kale waxay ugu tiri uuray leedahay Naciima Joker inta gabadha kale aad ku mashquulaysid iyo aad la dagaalaysid ma nin raasatid gasaana qurux badan tahay? war adina nimankayga waxay laguma farinay askari baa maya dhibaatada meesha ay ka jirtaa rabaa inaan ogaado. maya Nahla waxaa igu tiri 2016 aroosaa tagtay caawano waxaa dagaal ku gashay gabadha Naciima Joker loo gurigeeda. soo marka meeshaas waxaa iga cad dhibaatada iyo buuqa meesha uu ku jiro inay la'aan ku hayso. haddaan nin guursan lahayd maalin walba gabdho lama dagaalan aroosadana ma taagnaan lahayn. soo markay dhigeyso Nahla dhigeyso bartaada fadhi ha dhaqaaqin 6 feet ii jir waxaa la guursan weysaa qabtaay war orod mucjiso yahoon madowga qof qol xiri doona u egtay bartaada fadhi. war bal sidoo isku sii walaaqay fiiri laakiin ninkan anu waan ka shakiyay walaalay maxaanay ya ninka wuxuu eegay nin Mall of America maalin aan ku arkayo oo iga hadhi waayo idaba socdo markii dambe lambar buga aan iskaga dhiibano de lambarkii buga waxa laga yaabaa inuu waco ila bug buu ahaay oo ceelkii ii haay siba uga shaksan ninku muu cabsanaa talo indhihiisa ya mayma ninka booliis sax muu ahayn
booliis qoota qoota la dhaha sheekada waan aqaana Come on, police! Alhamdulillah, police kiba ilaah ii keen. Hello? Come on, yes. Hello? Inna lillah. Are you okay? No. Are you okay? No, okay, this around time. Woman, Ambulance ma kugu wacaa? look, Oh. my baby, it's moving. Problem, you know, you Okay. understand English very well, right? Soo marka takhtar ma u baahan tahay? No, Somali ay gula hadlin. I fought for Trump. Oh, okay. hate Somali. That's good for you. Speak English. That's good for you. That's good for you. Yes, That's you good for you support Trump, right? You have to write. I will for sue Trump. you. Oh, The- what's your name by My the way? baby Naimo, Naima. Joker, Is that your last name or first name? middle name. Middle name is Joker. Yeah, What's your first name? I hide my last name. That's good. A lot of What's your people first attack name? me these What's- days. Oh, okay. What's your first name? Naima. Naima. Ah. Do you need help right now? Yes. What are you talking about? Do you want to go hospital? I want to go hospital. My husband on the way. I tell him woman beat me. Okay. So shall I call the ambulance right now or you fine? Where is the woman beat me first? Don't worry about her. She's outside. Oh. I want. Oh. I can't sit. I Will you- can't sit. I can't So, sit. do No you- more talk. look. Your talk is shooting me like a gun. Look. Do you want to go hospital right now? She beat me 3 times I here. want to know what happened. I want to know everything. Okay. Listen. I don't like. She Why say, you police boofs? Look, boofs, wait. my friend? I don't want to hear bullshit. I don't want to hear like she say, he say. I want to know what Okay. happened. You have to Okay. tell me. You have to tell me what Me- happened. What her name? Nahla Omar. Nahla. Yeah. So what's the problem? What is Okay, between you and her? What's the okay. problem? She hate me. That, okay. 100%. I'm Okay. sure. Okay. I go outside. Okay. She come to my apartment. Okay. Knock Without your my door. permission. Without your permission. Yes, she knock my door. She come without your permission. Okay. Police officer, why you talk too much? I want to know everything. Okay, let me tell you something. Then she knocked my door. I was not here. I go Okay. to the halal. You know halal? So who told you she know your door? Because I understand. Because she was coming here. Okay. Then I go to the elevator. When I come out elevator, Okay. I was talking to the phone like this. Okay. My husband, Okay. I am suspicious on Facebook. Another woman. Then I was looking for Your my husband husband is account. cheating on you. I think so. So I was checking on Oh. Facebook who is following my husband and who. Then she come to me. Do you think she's going after No, your husband? That's what you think? no. That's another business, another case. Is she I was single? looking my phone. Listen, I was looking my phone, Okay. finding out who is following my husband, who is he following. Oh. They follow each other, but I don't care. I don't jealous for her. But She's not whoa. my type. Did they know each other? I don't care. But I want to know. Why are you confusing two history? Yeah, you're confusing me. I know English Look, very well. listen to me, Joker. This is legal matter. We're gonna go to the court. Okay, right? let me tell you I something. want to know everything. Okay, know, I was okay. Listen, answer the question I asked you. Who What is happened this tonight? crazy guy? What happened tonight? Okay, qabiilkaaga yaa waaye. I'm American. Yaa tahay dee. I'm African American. Qabiil malid. Listen. Okay, let me tell you something. what I come out the elevator. Okay. I was Tonight. looking on Facebook What on time my was own that? business. What time was that? 7 o'clock. I come out to the elevator, 7 p.m. me looking my phone, Okay. finding my business and following my husband, who is who following my husband. Okay. That's me. You do your own business. That's what I do for a living. Okay. Follow my husband on Facebook. That's And good. check and watch to my husband who follow. Did you ever catch his cheating on you? Yes, but this matter is not about my What is his husband. name, by the way? What is the name of the husband? My brother, are you taking medication for crazy, this mentally sick? I want to know everything. will You shoot keep someone soon. repeating your husband. I'm not talking about your Okay, husband. okay, let I me want to know what finish. happened tonight, 7 p.m. Okay. You do your own business, okay? Okay, Keep I was going. doing my own business. Keep going. Looking my husband. Keep watching. going. I was doing my Facebook guard tour Stop. to my husband, following my husband and watching my husband for other woman. I don't care. Then this woman ran Run. to me. Yes. Okay. And she never fight me face to face. She Okay. fight my baby. Wow. How many times She she got hit you? straight to my stomach. How many times she hit you? Book. How many times Like she that? hit you?
In my stomach, 6 times my stomach, and then after I run, I think my back 2 times. Where she hit you? Right here or right there or right here? Where my stomach is smaller. Where she This side hit is you? smaller or that side is smaller. It looks I to think me. the baby, once she put like book 2 times, Okay, when he she- run this side. I think so. Wow. She hit you this way, right? And then the baby run. The baby run here, He's right? very smart. He's my baby. Are you bleeding right now? I'm not bleeding, but I think the baby is bleeding inside. Okay, okay. Maybe you never know. After This a- person is damaged. Wow. He's already person, you know. He's a boy. His name is Qa. How many months are you? 9 months, 7 days, Oh, you and almost 16 hours. you're almost done, eh? Joker. Yes. Okay. Why you don't speak Somali? I fought for tribe. Okay, that's good for I you. don't like to stay a Somali area. I don't live with Somali buildings. I live suburban. I like suburban. My Yes. kids like suburban. Your husband getting money? No, but I don't like to live Somali, where Somali area live talking too much war, you know. Wow. Even I was scared when I see Somali police Wow. because Oh, you don't like Somali you police? guys crazy, yeah. I Okay. like Somali. Okay. My inside is white, my outside is Somali. Why You don't- understand? Wow, yes. Mentally, I'm white person. Wow. That's who I am. Alhamdulillah, this mask is killing me. It's very hard. My husband is coming. Yes, baby. Is this the guy who cheated on you? Wives, look, this. You start war already. That's why I don't live Somali That's what you area. told Why me. you starting war Rufianim already? That's what you told me. See, that's why I moved from Somali area. Because you guys talk too much. Is this your husband cheating on you? Is this? I told you Facebook. I didn't say to you physically cheating. I said he cheat me social media. But that's what I you were didn't tell telling you. me whole night. You are crazy, man. That's what. What's your name? Baby, naagtaan kuu sheegaa istagaalme. بوليس maxaa kale Naagtii ugu cadde. waa ban xabeen waan ii socdo umaleynaa hay Adiga kuma xiraye. Alla waa jajabanay baby iga qosol siin oo la cunugiiba. Cunugiina buustay naagtii, cunuga carara dhinacaan gadaad. Kile kasho iga jira. migrationka iyo waxa sabqaad bilaa ka tagana Yes. ninkan magaciisa aan rabaa. husband name? Q Q U U D. Qut. Qud His name is Qut. Qud magaca Soomaaliga Qut magaca. Alole, that everybody knows my husband. Qut Magac- Alole. He have 2 home care, 1 medical transportation and 5 taxi. ninkan Soomaali ma waa ekay. He's very rich guy. Yeah, his mother is Eritrean. Oh, isa la Triana miya. Her name is Sahro. She's Eritrean. way u sheegay Sharci muxuu Her haystaa? mother Ma is green card Somali. u haystaa mise ninkan ma green card u haystaa mise passport u haystaa? hadii la xiro walaal Do you have green card or passport? Passport. Waree ada citizen. naagtaada inay Trump jeceshay mogti. Yeah, he fought for Trump too. Ma runa? Yeah, we all qasbas Trump. anaga maxaa soo bilaanay laakiin adiga jooskaada ma aha. waa qasbannahay brother Jooskaada ma aha adiga. maya waa qasbannahay ma hadli karnaa brother Maya waxaa rabaa inay wada ninkan muxuu saad u dareemaa. Yeah. Guriga markuu soo galo saan miya mar walba. He said like that. Joker. waa no permit Qabo. I'm having the baby. Call Gabadha looga ambulance. leh. Call ambulance. Call I'm ambulance. gonna Somali call police. Call ambulance. Okay, please. gabadhan waa xira gudaha Thank dhiga. you, Somali police. Call ambulance. Thank you. Iskan waa ku wareeray. Marka gabadhan waa xira gudahan dhiga. Kabacdina detective-kan u gudbina wax iga gala mala. Stand up. You under arrest. Seizures. qoftan waa xira. naagtaas waxa ballan igu ah inaan jarjaro shaqaday ma horteeda ka dheh maxaa soo ma aniga kiiskan waa iga wareegay detectivekan ku wareejinaa Soomaalida waa ku wareeray meesha hartiin la aado wow wey gayadu ii waran fiicanta maasha allah Masha Allah. boqolkiiba boqol ii fadhiiso thank you maanta waa soo dheeraatee dee dad muddo sheekaysanaya waa nahay Sax. oo marka ay tiri iigu imo xafiiska hay horta waan farxay haye dee yaantaanba dee qofka waxaad lehed maogtahay mulkiila baana intaa ka shaqeeya xaggan
aad bay u qurux badneed inaa finally arkatay meesha ka shaqeynayso ما صح والله باهي والله باهي هاي marka dee labiskan waa isku egnaa maxaa may ooyeen ما يدق مرك جيني هدي تمد جيني مدو faraski madow فرسك مدو وين أنا نقضى سو ما عندي سكست أنت يا لبنت مدو بيجري واي laba qalbiyo is og عاديات قلبي جينا إسرابع ما فهمت ما شاء يا الله حفيز كي واكن كسر دو هل كان المارت دو يمكن يوحنا قيبيا horta waagii asbaranay ilaa sheekadayni maasha allah qof dee dhaqan iyo diin iyo asluub baa tahay عاديات oo ilaa hadda dee xumaanka ama arag نعم dee waxa iga dhinaa waxay ahayd inaan ku barto noloshaadii shaqadaadii introduce ay u sameyso intaana dee maanta waa ka dhanahay ها marka waa kan xafiiskaygii waad mahadsan tahay muddadii aynu wada soconay ee 4 bilood ka badan ahayd ku soo dhaw xafiiskan dee waa kan xafiiskan aanu ka shaqeeyaa barashadeeduna walahi aad bay u wanaagsanayd gabadh fiican baa tahay edeb leh asluub leh yaa oo aan wejigeeda wax aan la maranin oo sida ilaahay u abuuray ah baa tahay ma fahanti marka kuwaas caddaynayay iyaga yaqaan wax isku madooben doonaan soo ma fahmin marka aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad igu timid xafiiskay soo booqatay wax alaaliya waxaan kuu qabtan wax alaaliya waxaad kuu qabataa ayaan wax alaaliya waxaad jeceshay inaan kuu qabtana waan jeclahay maanta soo ma fahmin ya walba horta si fiican baa ii soo dhaweysaa ha noqoto wada hadal ha noqoto inkastoo dee gabadhu badriyo dee waqti baa jira oo sheekada un dee waa inay lahaataa wax jarana moogta aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ani mar walba waxaa islaa badri goormuu يا ها قيبتي goormuu ma aragtay goormuu ismeersanaa wadii waxyaabaha hadda nolosha loogu talagalay dee meerkin baa inoo halay waxa kaloo inoo halay ma jiro sheeko ka daalnay sheeko ka daalnay iswacnay sawir isku dirnay wax kasta sameynay soo madfahmi marka taasna ha haddii ilaahay yiraahdo waa dhamaynaynaa anigu adu haddaad soo diyaar garowdaana diyaar banahay weliba waan ku sheeka dhaafee intaynu kala maqnayn waxaan isku dayay inaan heesa adiga un kugu saabsan uun jacaylkaaga intuu ugu weynaaday nuclear ugu noqday inaan qarxaan ka cabsaday oo saraan sideen laga soo dhex qabto markaas waxay ku soo dhacday waxaan siri waxa hees ma qaadaa waxa ila qurux badnaaday hees Allah u naxariisto Umar Dhuul la qaado oo horay u qaaday ha markaas geeyoy daawashada guud kolkan sheeda ka dayo hayba dumar bawaaya eba kugu deeqo way eba kugu deeqe indhaha ku doogsada qalbiguna kasii daran indhaha ku doogsada qalbiga kasii daran abayoy qalbiga kasii daran heesta wallahi aad bay u dareemay maasha Allah jacaylkaygu dhab yahay waad ogaato soo ma waxa isweydiiyay wuxuu ahaa ninkan rumme ka tahay horta kama laakiin si ina jeceshahay waa ii cadda war dhamaaday weeyaan anigu waxaan isla armay ku diidaaba qalbigaygu ku jirtay intaas oo sidii muraayadii filmaantii baa ay soo martay iyo hormartay habeenkii xagga aniga ka daran ya habeen walba waxaa isdhaa ninkan goormuu reerka soo wici doona goormuu isbaran goormuu sheekada dhammaan doontaa bes haddii arrinka oo saas yahay dee odayga aabba iyo waa inaan wada xidhiidhno oo meherku waa imisa inaad ii sheegtid baa fiicnaan lahayd ha maya horta aniga geenya ahaan nolosha ayaa qiimeeyaa sax lacag waxba ma aha aad iyo aad waayo inta isoo gali doonta ayaa ka badan nacam marka meherku waa qiimihiisa wax yar hayaay waa fiican yahay waa wixii yaraa baraka leh wax yar baa ilaahay barakeeya because waxaa yar inta ka badan ay siin doonto ayaa ka badan ka sii badan ma sha Allah ma sha Allah weyn iyo lama aha sax aabba numberkiisa waa ku siinayaa haye familka de soo wac waa soo wacaya waxa isla ognahay ha noqoto sheekadii nacam de horta ma sha Allah aad ba ii farxad gelisay maanta inaa xafiiskaaga markaa imid waxaa islahaa de ninkan goormo sheekada laga soo afgari doona finally foil dhamaatay waxaan ka cabsanayaa odaygu inuu jiqiga kaga dhigu yidhaahdo ninkan yaxagu ku yimid kaagama dhigaayo sababtoo ah nin dee shaqaysta aad iyo aad oo diyaar u ah luuqluuq rabin dee cid diidis ma laha waxa la diido waa nin waqtiga ka dhuminaya gabadhiisa iyo luuqluuq marow dee kuwaas bay necab yihiin odayaasha nin mas-uulan dee waa tahay sax
gabadhan qofka markay la sheekaysanayso way akhrisanaysaa moogta aad iyo aad inta ka akhrista iga badan oo ku faraxsanahay aad iyo aad marka maasha Allah I'm so happy insha Allah de familka ku baraya waad baraysaa insha Allah waa isku raacaynaa insha Allah wax badan baad aynu hadda sheekadii aynu wadnay aad baad iga farxisay markaad tiri aabba maaragtay ayaan u tagnay lacagtii meherka iyo waxaas marka meherka bal adigu ilaa intee in la eg wixii sheeg waan isku ogaanay de waa ka yar xishoonay laakiin de anigu kuma dhiwaayo ilaa 3,000 ma ku dhigilaa dhib male 3,000 lacag maahe 3,000 lacag maahe 70 maan ayaan meherka ka dhigaynaa 70 maan meherka ka dhigaynaa 70 ha bismillah soo fahmin odayga aabana 60 baan u dhiibayaa wow ma 70 ha meherka alla kii feeraha weynaa wow odaygana yarad waxaan u siinayaa 60 ha ilaahay ma ku jecel yahay iska sidan hay hooyo ma joogtaa hooyo way joogtaa walaalo way joogaan maasha Allah waa maasha Allah hooyadii waa hooyadii ku dhashay ee ku soo barbaarisay inta ku soo leekaysiisay ee sharafta iyo karaamada ku yeeshay hooyo waa lama horaan beelahay Soomaalidu samad fahmin iyadu 100 dhinac baan ugu ridaynaa ku ya 100 hooyo ma 100 Allahu akbar ilaahay ma ku jecel yahay iska sidan feeraha weynaa deega daade ani haysdihin de dhabwe waaba naxay marka 3,000 weydiisay waxaan 3,000 markaad ugu tiri qalbiga ay xanuun waxaan yani moogtahay mustaqbalka iiga muhiimsan waan ogahay laakiin waxa ka muhiimsan anu bishii waxaan sameeyaa xafiiskan ku sameeyaa 100,000 waxaan rabaa inaan adiga kugu wareejiyo lacag ka badan aynu helno soo ma fahmin xafiiskan ma igu wareejiyo ha maasha Allah wow xafiiska iska daa macal nafteedaan kugu wareejinayaa waxoo dhan jumlad ku qaadanaysa tafaariiq xataa ma de odaygii xafiiska lahaaba haddaan ani leeyahay maxaa xafiis sheegaya maxaa sheegaya xafiisku de fiiri jimcahanbo reerka caawa soo wac caawan soo wacaya ma inta qoraxda bixin maqribkii waan soo wacaya haddii ilaahay yiraahdo anigana de waa usii sheegaya waxaa leeyahay nin wanaagsan baa soo socda hala soo dhaweeyo nacam de wow wax qalladan ha u qaadan walaal hadduu joogana 30 baynu ku dharbaaxaynaa isagana ka horta waa lacag jecel yahay mar walba wuxuu dhihi jiray nin ilaahay ku dhaqado lacag la ilaahay ha keeno ya waa iga farxiso wallahi hadduu walaal waadigii wiil lacag jecel yahay soo ma fahmin marka aniga lacagtan waxa wayba dhibtayba lacagta ay dhibtayba soo ma fahmin lacagta ay dhibtay marka waxaad samaynaysaa maya dhib ma lahan insha Allah adi reerka wada baranaysaa hay haddana waa iska sii baxaya insha Allah hay de waa isla joognaa okay check-na ma aragtaa ya check-na waa 35,000 waad ku sii shopping garaysanaysaa wartolka wali maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay 30,000 ha anu lacag meel kala geeyaan waay samaad fahmin ku sii shopping garayso intaas 30,000 bismillah shopping ha miyaan kugu daraa mid kale he because account-kayga limitka wuxuu yahay maalintii in lagala bixi karo 35 marka 30kaa imika qaado ku sii shopping garayso ha ku sii shopping garayso intaa wixii aad ila gabadh baad tahay waxbaad u baahan tahay dhar baad u baahan tahay koobaad u baahan tahay dahab baad u baahan tahay soo ma fahmin ha waxa kaloon kula socodsiinayaa alaabta guriga iyo fadhiga may waad ceebeynaysaa hay ceebeyn weligaa allah qurbaha qofka laguma ceebeeyo alaabtii waan order garaynaynaa soo ma fahmin haway baynu ka order garaysanaynaa ha Soomaalidu Germany waxba ka doonataa iyo Dubai iyo Turkey iyo waa laga baxay waxaas dacas weey waxaas Hawaii Pacific Ocean honeymoon waxaynu ka dhiganaa Russia Moscow عرب منو من عرب دنكاي افريكان بينو ناي ها ugo carabtan iyo waxan soo ma fahmin ما شاء الله iyadana waxa la yiri 150 kun baa la yiri moogsi صح waxay imanaysaa alaabtan waa order gareyn doonaa insha Allah laakiin alaabtan waa diyaar just حسو inaan doorano nooci ما شاء الله ya الله ilaahay ma ku jecel ha
marka wayno maqribka hadii la Ay, yiraahdo insha Allah Okay. reerka un soo wac adiga dee anna waa la sii hadla war dhamaaday wey insha Allah marka caawa aabo soo wac insha Allah anigana reerka u sii sheegaya haye marka waa armu aabay diidaa talo may aabo waa qof degan qol maroon igu dhahay aabo qofka alla qofka keento aku siinaa ma sha Allah taa ka walwalin haye adi un balanta adkayo may aan balantaydu waa dhag bas hay insha Allah waaye ay de faraska okay okay geeyad cad geeyadii bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacaylku yee hadda muqin mayadaa u darane hadda muqin quruxdu waa adi lacagtu waa ani ballantu waa tii runtaay Wow. Soddon kun shopping ka dhiga sartu degan yahaab wallahi cajiib soddon kun shopping ka dhiga kulaha waa seef gareena tan yaa isku halayn kara laakiinse alla ceeb badanaa wallahi istaagi baa ka dhacay hadduu isleeyahay tii lacag bay jeceshaa cid lacag diidays ma laha laakiinse kii buurnaa ilma cadcad alxamdulilah nin lacag leh oo haddana faras madow yaa diidaa